بسم الله السلام عليكم رمضان وناكسن وأمالين كيني شنادي برامج كبدل نرش هذا شلو حنك سوى الشيء كيسنا عن قاعد الشيء حقوق كسابسن سد حدا معنا هريسن وحاسف عن أوصى هذا الني السيد بدل عن أوصى ما ينكر من نفتنا معنا طلعنا حنك هذا الشيء كيسنا ساحبتنا مدي حقوق كسابسن شلو حنك هذا الشيء كيسنا عن قاعد الشيء marka maanta waxaan rabaa inaan ka wada sheekeysano qayb u muhiim ah saddexdooda haddii aad xog badan ka hesho ka saacidi doonto in intoodaba ay ku rumoobaan in kale oo u baahan tahay in aad si fudud ku gaarto waxay tahay sideen kula tacaamulaya dadka haddii aadan aqoonin sida lagu la xiriiro bulshada ama dadka kugu hareereysan ma awoodi kartid inaad isbedel sameyso aad saaxiibo kasbato sidoo kale go'aano wacan oo qurux badan aad gaarto binaadamkan waa sida hore u soo sheegnay waa dad loo abuuray inay u noolaadaan si koox-kooxa sida caadiga marka u baahan tahay isbedel waxaa ku soo wajahaya caqabado iyo challenge fara badan oo loo baahan yahay inaad ka kobacdo challenge-yadaas si aad u rumeyso isbedelka u baahan tahay marka saaxiibo kasbanayso saaxiibada waxay iskugu jiraan kuwa xun iyo kuwa wanaagsan waxa loo baahan yahay inaad taqaano sida loola tacaamulo labadoodaba marka go'aan gaaraysana dad baa go'aan ka gaaraysa dadna u gaaraysa labadoodna waa inaad taqaano sida loogu gaaro go'aan ama loo gaaro marka si intaas ay kugu suura gasho waxa u baahan tahay inaad taqaano sidaan ula tacaamulaya dadka sida caadiga markii aad tahay qof isbedel doon ah oo raba in uu ka kobco meesha uu maanta joogo una kobco meel sareysa oo high people inaad noqoto waxa ku soo wajahaya fariimo aad u adag oo aadan filanaynin ay ka mid tahay waxaan maxaad iskugu dhibaysaa maxaad u sameynaysaa istusus miyay ka tahay iyo fariimo noocaas sida caadiga waxaan rabaa inaan kuu sheego ibna aadanku ma la qancin karo suubanaha nabadgelyo naxariis dushiisa ayaa fariin suubanaha nabadgelyo naxariis dushiisa oo sidee fariintii ugu quruxda badneed dunida ayaa qancin waayay oo waxay isku dayeen mar walba inay khilaafaan ay dibaan ay ilaa heer ay gaarsiiyeen in ay dhiig ka keenaan waatuu dhahay waatii malaa'igtu ay timid oo ay dhaheen maxaan ku sameynaa na'amar oo kaliya oo tuu dhahay waxba ku sameynina waxa laga yaabaa dhabarkooda inay ka soo baxaan wax wanaagsan macnaha halkaas waxaan kala jeedaa dadku iyaga haddii xun yihiin macnaheedu kama dhigna in dadka ka dambeeya ama qoyskooda ama dad ku hareereysan ay xun yihiin balse waxaa jira dadka wanaagsan oo ku hareereysan marka waxaa loo baahan yahay in aan naqaano sideen dadka wanaagsan oo la dhaqanaa sideen dadkan kale ula tacaamulnaa haddii aad rabto in ujeedkaaga iyo riyadaada iyo hadafkaaga isbedelka u baahan tahay inuu mid qurux badan uu noqdo waa inaad la baxdaa dadka tayada leh waxaa jira xeer la yiraahdo only quality people xeerkaas waa xeer ku faraya in aadan dhageysanin dhagaha u dhigin fariimahooda aqrinin dan iyo heela aadan ka yeelanin dadka aanan ahayn dadka tayada leh dadka tayada leh waxay ku siinayaan awood aad hor ugu sii dhiirato inaad isbedel sameyso dadka tayada leh waxay ku siinayaan awood aad ku sameyso wax cusub dadka tayada leh waxay ku siinayaan awood aad isbedel cusub ku sameyso oo nolosha maanta ku jirto nolol qurux badan aad ka gaarto balse dadka aan tayada lahayn lugahay ka qabanayaan waxay ku dhahayaan waxa aan wado waa istustus waxa aan wado ma suura galayaan waxaan aan wado ma wax macquul gala oo dunida hore loogu sameeyay maxaad isku waalaysaa marka waxa ugu horeen laga rabo waxay tahay number 1 inaad diirada saarto dadka tayada leh weydiisaa yaa ii tayo leh oo aan maanta raadintiisa ama helistiisa aan ku dareemayo isbedel weyn qofkaas markaa hesho waa inaad dhaweysataa oo meel gaar ah dhigataa haddii aad aragto inuusan tayo iyo qiimo qofnimeed uusan lahayn qofku oo yahay qof negativity iyo ku mashquul dadeed yaqaano waa inaad iska dhaaftaa ka saar noloshaada sababtoo wax macno kuma soo kordhina marka number 1 waxa ugu horeeya laga rabo waxay tahay in aad xulato dadka tayada leh only quality people dadka tayada leh waa dad mar walba ku dhiirigelinayo ku rajo abuurayo didiilo ku siinayo ku dhahayo you can everything okay marka wax kale labaad laga baahan waxay tahay maadaama dadka tayada leh aad xulatay dadka kaleeto ma aha inaad kula dhaqanto sida iyaga kula dhaqmeen waa inaad noqotaa mar walba qof wanaagsan sidii waxa la dhahaa qofka wanaagsan ma helo jaanis ama fursad uu wax xumaana ku sameeyo ama uu qof ku culaadiyo marka mar walba waa inaad noqoto qof wanaagsan oo dadka wanaajiya hadday ku caayaan ammaan hadday ka xanaaqaan ka farxi hadday ku culaadiyaan adigu mar walba xiriiri hadday ku dhahaan waa xunta adigu u sheeg inay fiican yihiin ay ku keedsan tahay hibi karti awood ka badan intay arkayaan hadday dad ay ku mashquulsan yihiin ayna rabaan inaad dadka la xamato u sheeg qof walba oo noolaa inuu karti awood Ilaahay dhaxdhigay inta yar ay ka qaldanta aysan ahayn inuu isaga dhan qaldan yahay balse
ay tahay qalad yar ka dhacay uuna sixi karo intaa inaad la wadaagtaa loo baahan yahay marka haddii isaga uu xumaado aad ka tawa xumaato waxay noqonaysaa caqabad kaleeto iyadana meesheeda taala marka waxa ugu dambeeyo aan rabo video ujeedka ugu weyn aan kula wadaagayo waxay tahay sideedaba ibn aadanku ma jirto qof qancin kara sababtoo ah waxay ku dhahayaan marka aad doola cadeyso maxaad afkaaga u xiran laada aad u doola cadeynaysaa marka aad afkaaga xirato waxay ku dhahayaan maxaad afkaaga u furan laado yaa kaa murji yaa kaa xanaajiye maxay tahay afka isku hayso markii aad wax la baxdo waxay ku dhahayaan maxay tahay istustuskan kaa batay ma lacagtaada ilaashatid marka aad lacagta ceshato waxay ku dhahayaan maxay tahay faqiirnimada baqiilnimada waxaan si kastoo aad isku daydo inaad wanaag u samayso ama si kastoo aad isku daydo inaad iyaga u qanciso ma qancin kartid ibn aadanka waxa mar walba qasab ah oona haboon oona ay wanaagsan tahay in aad qanciso naftaada ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku dhahay fi anfusikum afala tubsirun warna fiyalkiina ama nafihiina miyaadan arkin halka waxa ka ogaan karta qof walba in mas'uuliyad looga saaro naftiisa waxaana qurux badan waxay tahay inaad naftaada ku mashquusho hadaad naftaada ku mashquusho taada bedasho taada kobciso taada wanaajiso taada daryeesho dadka kale dhan wixii aad la rabtay way gaarayaan maanta halka ayaa kusoo gabagabeynayna barnaamijka bedel noloshaada xalqadiisii afaraad waxaan rajeynayaa wax badan ka faa'iideen wixii fariin iyo talo aad ila wadaagayso waxaad igula soo wadaagi kartaa gmail-ka shaashada kaaga muuqda mahadsanidin ramadaan wanaagsan anigu Cabdi Fataax Qaasim Cali